markaad maqasho maalmaha xorriyadda Soomaaliya dibadba waxaan niyadaada ku soo dhacaya 26 Juun iyo 1 Luulyo waase muhiim daawada inaan wada ogaano muhiimadda maalmaha ay u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed waa maalmo farxadeed oo dareenka muwaadin kasta oo Soomaaliyeed bedela waa maalmo qof kasta uu noqonayo muwaadin xitaa haddii uusan aqoonin taariikhdooda gaarka ah xilliyo kala duwan oo maqaalku ku soo gaaray ama waayajoog aad u ahayd ayaa sababo kala duwan loogu dabaaldegay 26 Juun waa maalinkii ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka dega waqooyiga ama gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay xornimada qaateen iskana fogeeyeen xorriyadii iyo gumaysigii Ingiriiska waana maalinkii ugu horreeyay dhul Soomaaliyeed laga taago kuna babado calan matala kuna faanaan leeyihiin dad Soomaaliyeed waana calanka buluuga ah oo xidigta cad isla markaana shangeesoodka ahi dhexda kaga taal Hangunimiyo dibahata mudho Domahalayga saray dhinacyadaay Dara hartan waxyeeladihi dhaqdhaqe dhanka kale 1 Luulyo ayaa iyaduna ah maalin dadka Soomaaliyeed si aad ah ugu weyn kana mug weyn maalinkii hore ee 26 Juun 1 Luulyo 1960 waa maalinkii ay iyaduna xornimada qaateen gobolada koonfureed ee Soomaaliya waana maalinkii ay sidoo kale midoobeen gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee Soomaaliya waxaa maalinkaasi curtay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay leeyihiin kuna faanaan ummad weynaha Soomaaliyeed waxaa meel kasta isqabsaday dabaaldegyo ku laran noocyada kala duwan ee suugaanta Soomaalida waxaa dhammaan shacabka isugu soo baxeen fagaarayaasha waaweyn ee dalka waxayna ku labisnaayeen calanka buluuga ah ee quruxdiisu iyo naqshadiisu u samaysan tahay mid ishii aragtaaba aysan libiqsanayn xilligan oo ah qarnigii 21aad waxaa si weyn looga xusay maalmahan dhammaan gobolada dalka iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay horay u magacaawday guddi qabanqaabiya munaasabadaha maalinkaas waxaa si weyn looga dareemay qabanqaabadooda gudaha dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa howlo nadaafin ah lagu sameeyay inta badan wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda waxaa xuskii ugu horreeyay lagu qabtay 26 Juun toddobaadkii hore ee xarunta aqalka dowladda hoose ee Fiisha Kuweerno iyadoo munaasabadaasi lagu soo bandhigay fantastikyo kala duwan waxaana goobta ka hadlay madax kala duwan oo uu ugu sareeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxayna dhammaan madaxdii kala duwaneed ee ka hadlay goobta ka sheekeynayaan qiimaha halgankii iyo xorriyaddii Soomaalida sidoo kale munaasabada oo loo kala harin oo lagu xusayay 1 Luulyo waxaa lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya iyadoo markii ay saacadu ku beegneed 6dii saqdii dhexe ay dhammaan mas'uuliyiinta iyo shacabkii ka soo qayb galay xuska 1 Luulyo ay u istaageen astaanta calanka Soomaaliya madaxweynaha Farmaajo ayaa calanka saaray iyo kooxda baambeeyada Soomaaliyeedna ay garaacayeen astaanta qiirada leh waaga markii uu bariyay waxaa soo buux dhaafiyay garoonka weyn ee Konis dad aad u fara badan kuwa oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku dhow gobolka Banaadir waxaana dhammaan dadkaasi ku labisnaayeen calanka Soomaaliya waxa ayna siteen boorar iyo sawiro ay ku xardhan yihiin madaxda dalka waxayna wajiyadooda ka muuqatay farxad zaa'id ah
Libanay